kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaalka Muqdisho ciidamadii taabacsanaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isaga guuray xaafadda Cabdiqaasim iyagoo fariisimo cusub ka sameystay xaafadda Siigaale ee degmada Hodan goorma ayay guureen ciidankan maxayse tahay sababta ka dambaysa inay ka guuraan halkaasi ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo dib ula wareegay wadada Cabdiqaasim oo saacado badan ay gacanta ku hayeen ciidanka taageersan mucaaradka iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda caasimadda dalka waa sidee xaalka saakay ee Muqdisho barakac ka bilowday xaafadaha ku teedsan isgoyska dabka maadaama halkaasi ay soo dhoobteen ciidamada mucaaradka xaalka guud sida uu yahay ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah saraakiisha ciidan ee ku biiraysa mucaaradka oo isi soo taraya iyo saraakiil boolis ah oo xalay u goosta dhanka madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud waxaa sidoo kale la filayaa in maanta warbaahinta loo soo bandhigo kuwa kale oo ku dhinac noqonaya midowga murashaxiinta wararkeena kalena waxaa kamid ah Mareykanka oo hanjabaad culus soo saaray kadib dagaaladii ka dhacay Muqdisho muxuu Mareykanka ugu goodiyay dhinacyada isku haya xamar waase maxay talaabada uu qaadayo wararkii ugu dambeeyay banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo oo xalay ka dhacay Muqdisho iyo kuwa kale oo maanta la qorsheynayo in ay dhacaan qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana subax talaada 27 bisha Afraad Abriil sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan nala faafi wararka oo gaarsiiyay saaxiibadeena idinkoo ku share gareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaalka magaalada caasimadda Muqdisho ciidamadii taabacsanaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame isla mar ahaantaana saacadihii la soo dhaafay fariisimo ka sameystay wadada Cabdiqaasim ee isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo waramayaa in xalayto saqdhexe ay halkaas isaga guureen ciidankan oo aad u farabadnaa isla mar ahaantaana wata gaadiidka dagaalka ayaa xalay u guuray dhanka iyo xaafadda Siigaale ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in xaafadaasi ay ka bilowdeen isla xalayba barakac ay sameynayaan dadka deegaanka maadaama ay ka cabsi qabaan in halkaasi lagu soo weeraro ciidamada ee fariisinka ka sameystay ciidamo ka tirsanaa kuwa taageersan mucaaradka oo ilaalo u ahaa murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame Saadiq John iyo Yuusuf Indhacade ayaa isaga guuray agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim halkaas ay ku sugnaayeen saacadihii la soo dhaafay isla mar ahaantaana ay dagaal culus kula galeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ciidamada ayaa wararka la helay waxa ay sheegayaan inay u guureen dhinaca xaafadda Siigaale ee degmada Hodan halkaasi oo iyaga iyo madaxda la socota ay fariisin cusub ka sameysteen sida xogaha ay tilmaamayaan dhinaca kale ciidamada ammaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilaabay inay furaan wadada u dhaxaysa isgoyska kilomitir 4 iyo Tarabuunka iyagoo halkaasi dib ula wareegay waxaana horay halkaasi dhufayso uga sameystay ciidamo ka tirsan kuwa taageersan mucaaradka oo si gaar ilaalo ugu ahaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame Saadiq John iyo generaalka la yiraahdo Yuusuf Indhacade waxay wararku tilmaamayaan in ciidamadan ay guureen xalay ee saqdhexe isla mar ahaantaana ay u guureen dhinacaas iyo xaafadda Siigaale ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir wararkan ka helnay sababta ay u guureen ciidankan mucaarad ka taageersan isla mar ahaantaana ay uga baxeen Cabdiqaasim ayaa waxay sheegayaan inay tahay istiraatiijiyad dhinaca ciidanka ah waxa ayna isku raaceen ciidankan iyo saraakiisha hogaaminaysa sida xogo gaar aan ku helnay in wadada Cabdiqaasim ay tahay wado aan ku fiicneen ku dagaalanka isla mar ahaantaana ay tahay wado ay soo galaan wadooyin waaweyn isla mar ahaantaana ay fududahay in si sahal looga taqaluso ciidamadaasi maadaama dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u adeegsan karto gaadiidka waaweyn ee beebayaasha loo yaqaano ee Turkiga iyo dawladaha kale ee Soomaaliya taageera ay ugu deeqeen ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya saraakiil ka tirsan mucaaradka oo halkaas ku sugnaa ayaan ka soo xiganay inay uga guureen halkaasi inay soo gali karaan gawaarida waaweyn ee gaashaaman maadaama wadooyin waaweyn ay halkaasi maraan waxa ay sheegeen in xaafadda Siigaale ay tahay
xaafad isku raran ah isla mar ahaantaana aysan suurtagal ahayn inay soo galaan gawaadiidka gaashaaman isla mar ahaantaana ay halkaasi ka dagaalami karaan ilaa iyo waqti aad u fara badan. sidoo kale waxaa jira sababaha ay halkaasi ugu guureen in lagu sheegay inay halkaasi isku bahaysanayaan ciidamada uu hogaaminayo taliyihii hore ciidamada danab ninka la yiraahdo Ismaaciil Cabdimaalig iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha Daynile Jaafar oo iyaguna halkaasi shalay ilaa iyo habeen hore dagaal ka waday isla marhaantaana halkaasi kula dagaalamayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. si kastaba xaafadaha Bakaaraha Siigaale qaybo ka mid ah dabka ilaa iyo Bakaaraha xaafadaha kale ee qaybta ka yihiin Barmuudo waxaa gacanta ku haya ciidamada ka soo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana taabacsan midowga murashaxiinta mucaaradka ah. si guud xaaladda Muqdisho ayaa saaka degan waxaana goobihii lagu dagaalamay ee xaafadda degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ka socda barakac ay sameynayaan dadka shacabka ah iyagoo ka cabsi qaba in dushooda lagu dagaalamo. waxaa si gaar ah u degan saaka xaafadda Cabdiqaasim oo isaga guureen ciidamadii halkaasi ku sugnaa. dhinaca kale saraakiil ciidan ayaa la filayaa in maanta ay ku soo biiraan dhinacaas iyo mucaaradka waxaana la qorsheynayaa in ciidankaasi loo soo bandhigo warbaahinta madaxa bannaan. xalay ilaa iyo shalay ayay ahayd markii taliyayaal booliis oo ka tirsan booliiska gobolka Banaadir ay ku soo biirayeen dhinaca dadka ka soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. taliyayaashii shalay ku soo biiray dhinaca mucaaradka waxaa qayb ka ahaa taliyayaasha degmooyinka Shibis iyo waliba sidoo kale degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. waxa ayna sheegeen in ay ku dhinac yihiin ciidamada la socda amaba taageersan madaxdii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya si gaar ah madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud. waxa tallaabadan ay qaadeen ay noqonaysaa mid dhabarjab ku noqonayso madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama taliyayaashii booliiska gobolka Banaadir ay iyagu ku dhawaaqeen in ay ka goosteen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isla marhaantaana ay gadoodsan yihiin. haddaba daawadayaal wararka ku soo kordha xiisadda ka taagan weli magaalada Muqdisho wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa. markaana Mareykanka ayaa waxa uu ka hadlay rabshadihii ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho isaga oo hanjabaad soo saaray. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay rabshadihii magaalada Muqdisho ka dhacay Axaddii u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo ilaalada gaarka ah ee murashaxiinta oo ay weheliyaan ciidamo diidan muddo kororsiga. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay muujiyaan isxakameyn si ay khilaafyadooda ugu xaliyaan si nabdoon ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. sidoo kale Mareykanku waxa uu yiri wadahadallo iyo heshiis ayaa ah hadabka amaba hababka kaliya ee lagu xaliyo ismariwaaga siyaasadeed. waxaan ku boorinaynaa dhinacyada in ay dib u bilaabaan xajoodyada mar-uun si ay u gaaraan heshiis hore loogu ambaqado doorashooyin degdeg ah. Mareykanka ayaa ku baaqaya in dib loogu laabto wadahadaladii ka socday Afisione isla mar ahaantaana la qabto doorasho degdeg ah inkastoo dowladda federaalka ee Soomaaliya arrinkaasi ay dhigaha ka fursanayso. hanjabaadda ay ku celisay dowladda Mareykanka ayaa u muuqata inay mar kale ku socoto madaxda dowladda federaalka maadaama hanjabaaddii hore ee soo baxday 14 Abriil ay si toos ah ugu socotay madaxda dowladda kana dhalatay muddo kororsiga. qoraalkaas hadda ka hor ka soo baxay Mareykanka 14 bishan waxaa lagu yiri waxaan sidoo kale cadeynaynaa in Mareykanka uusan taageeri doonin muddo kororsi aan haysan taageerada saamilayda siyaasadda Soomaaliya iyo hanaan doorasho oo hal dhinaca iyo kuwa isdhinac socda. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa weli looga fadhiyaa inay qaado tallaabooyin lagu xallin karo xiisadda ka dhex bilaabatay iyaga iyo waliba sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo ka dhalatay muddo kororsiga loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Farmaajo oo lagu xanto inuu yahay nin mowqifkiisu u adag yahay ayaan la ogeyn tallaabada uu dalkan ku badbaadin karo. ugu dambeyntiina banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayeen dad shacab ah ayaa xalay waxa uu ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir waxaana looga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. banaanbaxyaasha oo watay boorar ay ku qornaayeen ereyo kalena madaxweyne Farmaajo ayaa socod ku maray dhowr isgoys oo ka mid ah jidka wadnaha laga soo bilaabay isgoyska Jirowac Buudan, Sanca, Jardiinka, Siinay ilaa nawaaxiga Xerar Yaale ee wadada wadnaha.
dadka banaanbaxaas dhigay oo watay codbaahiyaal ayaana ku dhawaaqaya ereyo karana madaxweyne Farmaajo oo ay ka dalbanayeen in uu iscasilo. qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ku fashilmay in dalka uu ka qabto doorasho xor iyo xalaal ah, sidoo kalena uu yahay keligii talis isla markaana ay doonayaan inuu isaga baxo. waa siday hadalka u dhigeen. waa habeenkii labaad oo xiriir ah oo banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dhaco magaalada Muqdisho. xaaladda magaalada Muqdisho ayaa degan kadib dagaaladii saacadihii la soo dhaafay ka dhacay, inkastoo weli ay jirto cabsi laga qabo in mar kale dagaalo ay ka dhacaan magaalada caasimadda ee Muqdisho maadaama weli ciidanku ay soo fadhiyaan. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo.